xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ah waxa ay ku yeesheen xaruntooda iyaga oo ansixiyay sharciga maareynta maaliyadda dalka. kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa 141 mudane waxaana dood dheer kadib ogolaatay meelmarintiisa 135 mudane halka 6 xildhibaan ay diideen in la ansixiyo. gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ku dhawaaqay natiijada codeyntii maanta ee lagu ansixiyay sharciga maareynta maaliyadda dalka. codeynta sidaan ayay u dhacday. sharciga maareynta maaliyadda BFM-ka waxaa ka aamusay madax xildhibaanada, waxaa diiday waa 6 xildhibaan, waxaa ogol u codeeyay 135, kooramka annagana wuxuu ahaa 141. sharcigaasi sidaas u ansax ku yahay. dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa digniin u diray xubnaha ka maqan kulamada asagoo xusay in xeer hoosaadka la tiigsan doono xildhibaankii sabab la'aan u maqan.